kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo mar kale ka qarxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool duleedkeeda kadib markii askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu xabad ku dhuftay qof shacab ah ciidanka SSC Khaatumo oo sheegay in ay ka guuleysteen ciidamada Somaliland dagaalkii ay la galeen sidoo kalena ay ka furteen hub kala duwan xaalka magaalada Laascaanood iyo wali xiisad dagaal oo laga dareemayo magaalada iyadoo maamulka Somaliland oo war soo saaray ay sheegeen in ay ka war heleen Puntland inay weerar ku soo yihiin kuna eedeeyay maamulka Saciidani in uu abaabul dagaal ka wado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi oo shaqo joojin ku sameeyay taliyaha ciidanka militariga qodobadaas iyo qaar kale ayaa daawan doontaan daawaday haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aan halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa mar kale ka qarxay dagaal xoogan oo dhaxmaray ciidanka deegaankooda difaacanayo ee SSC Khaatumo iyo ciidanka maamulka Somaliland ee wali doonayo inay Laascaanood xoog ku qabsadaan dagaalkan ayaa lagu jabiyay ciidanka Somaliland waxaana dagaalkan uu dhacay kadib markii askari ka tirsan ciidamada Somaliland uu xabad ku dhuftay qof shacab ah sidaasina uu ku bilowday dagaalka waxaana dagaalkan la sheegay in uu khasaaro xoogan ka dhashay inkastoo aan si dhab ah loo ogaan karin khasaaraha ka dhashay dagaalkan iyadoo dagaalka xoogiisa uu ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood saraakiil ka tirsan ciidamada SSC Khaatumo ayaa sheegay in dagaalkaasi hub ay kaga furteen ciidanka maamulka Somaliland waxaa sidoo kale hubkaasi oo ay soo bandhigeen ay ku sheegeen in uu ahaa hub calaamadihiisu ay ahaayeen kuwa muujinayo in laga keenay waddanka Djibouti ciidanka SSC Khaatumo ayaa xaqiijiyay inay ka go'an tahay inay difaacdaan magaaladooda Laascaanood sidoo kalena aysan aqbali doonin in ciidanka Somaliland ay xoog ku qabsadaan magaalada Laascaanood xitaa haddii ay taageero ka helayaan dowladda Djibouti hubkii tirada badnaa ee xalayto laga qabsaday ciidanka Somaliland dagaalkii Laascaanood ayaa waxaa ka muuqanayay calaamado muujinayo in laga keenay waddanka Djibouti dagaalkan mar kale laga adkaaday ciidamada Somaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo wasaaradda gaashaandhigga ee maamulka Somaliland warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay in Puntland ay isku diyaarinayso inay weerar ku soo qaado ciidamadooda wasaaradda gaashaandhigga Somaliland ayaa sheegtay inay heshay xogo ku saabsan ciidamo kala duwan oo maamulka Puntland ah in weerar ay ku soo yihiin ciidamadooda ku sugan deegaanada iyo degmooyinka gobolka Sool qoraal ka soo baxay wasaaradda oo ku qornaa luuqadda Ingiriiska ayaa waxaa lagu yiri xukuumadda gaar ahaan wasaaradda difaaca Somaliland waxa ay jeceshahay inay ogeysiiso beesha caalamka dowladaha gobolka iyo qaramada midoobay in aanu helnay xog sirdoon lagu kalsoonaan karo taasi oo muujinayso in ciidamada ka tirsan maamulka Puntland ee Soomaaliya ay ku jiraan PSF iyo waliba ciidanka badda ee Puntland ee PMPF ay qorsheynayaan weerar inay ku soo qaadaan ciidanka Somaliland maalmaha soo socdo sidoo kale Somaliland ayaa sheegtay inay si dhab ah u qaadanayso khatartaasi oo dhan tallaabooyinka laga maarmaanka ah ee lagu ilaalinayo dadka iyo deegaanada Somaliland ayaa sheegtay in maamulka Puntland uu doortay inuu cadaawad intaasi la-eg ka qaado Somaliland waxaana rabnaa inaan cadeyno si kastaba ha ahaatee in ayna ka laaban doonin ama ayna isku dhiibin gardarro kasta nafteenna iyo dadkeennaba waanu difaaci doonaa dhammaanteen ayaa sidoo kale lagu yiri qoraalka waxaa sidoo kale lagu yiri qoraalka wasaaradda inay soo jeedinayaan beesha caalamka iyo qaramada midoobay in arrintaasi ay cambaareeyaan oo ay ku tilmaamaan gardarro laguna taageero xaqa Somaliland ay sheegtay inay u leedahay difaaca haddii weerar dhaco waxaa mas'uuliyaddeeda qaadan doontaa maamulka Puntland laguna xisaabtami doonaa falalkooda ayay tiri maamulka Somaliland
wasaaraddeeda difaaca qoraalka ay soo saartay. qoraalkan wasaaradda gaashaandhigga Somaliland oo aad u dheer ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay inay rajeynayaan in si nabad ah lagu dhameeyo khilaafaadka ayna dib u eegi doonaan mowqifkooda. Somaliland waxa ay weli ku taagan tahay nabad ku wada noolaanshaha iyo wada shaqaynta dhammaan jaarkayaga, laakiin kama laaban doono go'aanka ah inaan difaacano muwaadiniintayada, dhulka iyo madax bannaanida marka loo baahdo, ayaa lagu yiri qoraalka maamulka Somaliland ka soo baxay. warkaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Somaliland ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu isbeddello ku sameeyay taliska ciidamada kadib markii lagu jabiyay ciidamadiisa dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Laascaanood. xogaha aan u helayno ayaana sheegaya in taliyaha ciidanka militariga Somaliland shaqo joojin lagu sameeyay. taliye Nuux Taani ayaa shaqada laga joojiyay kadib markii ciidamada Somaliland ay guulo ka keeni waayeen dagaalka ka socda gobolka Sool iyaga oo baneeyay Tukarraq iyo Gambadhe. ciidamada Somaliland ayaa sidoo kale waxa ay baneeyeen dhammaan difaacyadii dhinaca magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaasi oo muddo ku dhow bil uu ka socdo dagaal u dhaxeeyo Somaliland iyo dadka deegaanka. sida ay sheegayaan ila wareedyo lagu kalsoon yahay, madaxweyne Muuse Biixi ayaa si ku meel gaar ah taliska guud ee ciidamada Somaliland uga dhigay sareeyo guuto Faysal Cabdi Bootaan oo hadda hogaaminayo dagaalka. Faysal Bootaan ayaa Muuse Biixi ka dhaadhiciyay in fashilka dagaalka uu mas'uul ka yahay Nuux Taani, taasi oo keentay inuu isaga si ku meel gaar ah ugu dhiibo hoggaanka dagaalka Laascaanood. Somaliland ayaa rumaysnayd in si fudud ay ugu guuleysan kartay dagaalka kuna qabsan kartay Laascaanood oo aysan dadka deegaanka is hortaagi karin. ha yeeshee waxa taasi ay noqotay mid riya ah maadaama dadka Laascaanood ay adkaatay in dagaalkaasi ay ku jabiyaan ciidanka Somaliland oo si xaq darro ah ugu soo duulay magaalada Laascaanood. taasina waxay keentay in Muuse Biixi niyad jab uu kala kulmo guuldarrooyinkii ugu dambeeyay ee ciidamadiisa. Somaliland ayaa sidoo kale dagaalka Laascaanood ka dhaxashay sumcad xumo aad u weyn, iyadoo marar badan lagu eedeeyay inay beegsanayso goobaha shacabka, waxaana ugu dambeysay Talaadadii oo lagu eedeeyay inay weerartay isbitaalka magaalada Laascaanood. sidoo kale dadkii geela la jiray ee duleedka magaalada Laascaanood ayaa ciidamada Muuse Biixi waxaa la sheegay inay bililiqaysteen oo xitaa cuntadii u taalay dadka geeleyda ahaa ee geelooda la jiray duleedka Laascaanood ay halkaasi kaga bililiqaysteen. waxaana dadka geeleyda ay sheegeen in ay u muuqdaan ciidanka Somaliland kuwa gaajaysan oo xitaa cunno uusan siinin Muuse Biixi. arrintan ayaa horseeday cambaarayn caalami ah oo ka timid beesha caalamka oo marar badan soo saartay qoraallo lagu cambaaraynayo dilalka dadka shacabka ah. guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen. tan intaanu dib ugu kulmi doono muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.